السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا دمانتين مال كستود عالم كشوكتين وولالكين ماد أحمد oo si toos ah marka live kugu jira walaashay Caaisho ayaa marka barnaamijka qadku ka xumaaday marka sida darteed insha Allah waxaan rabaa inay resultigeeda nala share gareyso aan idin soo casuumo biidnillahi alkariim marka noo share gareeya biidnillahi alkariim barnaamijka imankan Caaisho soo qabanaya mardhow insha Allah شير إن شاء الله شير عاوي برنامج حيسلان إدين هاينا بتكيقبوا قدونتين إن شاء الله بإذن الله الكريم نوبت ضدك انت إن شاء الله ضدك نوبتان شاهد يقبرتين نواك اوكي وبلابنينا ان شاء الله باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ان شاء الله ميل كستود عالمك كجوجتين سو دوادا وولالكين مهد احمد واذن الله دمانتين ان شاء الله افر وناكسن أنا وحير كهر أنا فر إن شاء الله بإذن الله الكريم الحمد لله هذه هذا المركز إن شاء الله أنا إذا كنا إذن رجينا يا إلى المركز سيف في عن وأفر دونتين إن شاء الله أنتي أنا أفرن أنتي أفرتنا إن شاء الله أيقنا وحن له ما شاء الله ولا الله كلا الدعين إنه يجونا مركز ولي وقت أسيد مية إن شاء الله بإذن الله الكريم أوكي عاوي وحان إدين هيا رسالة عجيبة Herbalife Nutrition مدة استعمالي سي عائشة عمر جريد كوتش أن ربينا مركز سوق أبته وأيضا مركز فيسبوك وكحماضي هذه مركز نيجي سوق عسونتو مركز أيضا سوق كمان إن شاء الله سي إذن لا شير جريسو برنامج كان مدام أيضا برنامج كان هذا عائشة يسوق القرآن إن شاء الله سي مركز كوسو عسومه تلفون كاغن إن شاء الله سيحي وصيدها أوجيف إن شاء الله بإذن الله الكريم waxaan noo dhamaaday bishii barakaysneed ee Ramadaan waxaan nooga haray maalmo yar insha Allah marka anagu waxaan dadka ka caawinaa sidoo qofku marka noloshiisa ku bedeli lahaa haduu rabo inuu miisaan dhimo haduu rabo inuu miisaan kordhiyo haduu rabo marka lifestyle-kiisa markaas inuu maaragta wax ka bedelo ayaan marka dadka anaguna waxaan ugu yeernaa wadadii ay mari lahaayeen iyo marka meal balaankii ay qaada lahaayeen ayaan siinaa sida darteed waxaan ahay anigu Herbalife Nutrition Coach muddo sanad iyo bar ayaan ku jirnaa miisaan aad iyo aad u badan insha Allah waan riday halka markii hore aan marka resultigaygu aad u yaraa oo waxa weeye berigii hore aan wax kasta sameey jiray oo aan miisaan si kastoon u dhinmaago aanan marka aan dhimi jirin oo xaaladu igu adkaa jirtay ayaa marka laakiin alxamdulillah maanta ay wadeen ما شاء الله لكن واحد شيء ردد بدن أو يجون أساسه كله نرش وده كبدلي لايف ستايل كذي عافيمات كذا ما شاء الله وحنصور قفتي هدنا عائشة إن شاء الله شيء الدين عائشة سودو وكسودو برامجك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندوي مهد محمد علي لما أنت أصحاب تعاد بندمانتيني سلام يا خد كي بيجحوا ماضي marka sida darteed mahad baa u suurta gashay inuu soo qabto oo resultaatiga in la wadaago insha Allah ma sha Allah wax yar waan ku aragnaa telefoonkaaga hoos wax yar u dhig si aan si fiican markaas wax yar wili ku dar wax yar insha Allah bravo wakaas ma sha Allah Aisha soo dhawo walaal insha Allah waxaan rabnaa caawi waxaan dadka u ballan qaadnay inaan markaa la share garay doono result cajiiba oo wax weey dhankaaga ka imaanaya aniga iyo dadku waan isbaranay dabcan muddo dheer ayaan isna qaadnay resultiga wada share gareynay laakiin dadku waxay dhahaan wixii cusub calanka jecel marka soo dhawow barnaamijka عائشة عمر أديكو هو الصومالية مدة Herbalife كتيرتي واحد كفائدي نلاش هذا before Herbalife سيدا أنولد خد سيدا أنوش هاي إن كسر دو مركب برنامج كون ستوسا أن وكتيرنو إن مدة الصومالية إن داونا يعني ما شاء الله ما هذا بعد ما هتصنت هاي نانيك مقعي قوتا أصحاب تنصبريا مقعي قوا عائشة عمر
waxaan hooyo Soomaaliyeed waxaan deganahay waddanka Jarmalka gaar ahaan waxaan rabaa inaan la wadaago faa'iidadii iyo resultaatiga aan Herbalife Nutrition ka helay intii muddada ahayd aan ku dhex jiray Herbalife Nutrition waxaan isticmaalay oo bilaabay 2017 bishii 11aad waxaan la xiriiray coach Mahad inkastoo ay ka horeysay goortii aan la xiriiray anigoo xaamilo ahayd hase ahaatee waxay ii suurto gashay anigoo cunugaygu saddex habeen u jiro inaan isticmaalay Herbalife Nutrition ilaa imiko ay waqti xaadirka ay joogtana inaan isticmaalo mar walba aniga iyo ilmahayguba aan mar walba kala harin alxamdulillahi rabbil caalamiin faa'iidada aan ka helay waxa aad number 1 ah horta miisaanku hay dambeeyo miisaanka qofku sports u take kara uu ridi karaa laakiin waxa ugu horeeya ee aan aniga Herbalife aan ka helay waxay tahay allergy aad u fara badan vitamin aad u fara badan maqaarkayga oo isbedelay anigoo maaragtay noqday hooyo inkastoo de marka hore waa hooyo socoto wax qabsata aan ahaa haddana yeelka ee hooyadu markay allergy sii hesho ama se tamar sii hesho ama se maaragtay ay hesho maaragtay wixii jirkeedu u baahnaa waxay sii helaysaa tamar aad u fara badan alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iskale inta nagu soo gaarsiiyay caafimaadkana siiyay aniga inta aan isticmaalay Herbalife miisaanka aan iska riday waxa weeye 21 kilo marka maanta lagu daro صح 21 kilo baan iska riday welina waan wadaa alxamdulillah welina hawsha way socotaa ma dhawaa ما شاء الله عائشة واحد نوشكتي 21 كيلو ميسان inay ka dhacday inaad low energy aheyd inaad waxyaabo badan faa'iiday marka ma jiraan marka adiga marka laga soo tago caafimaadkaad heshay iyo farxadda iyo lifestyle-ka iyo in noloshaadii dabcan isbedeshay oo dareemi karo de noloshaadu waxa ay isku bedeshay oo anigu aan ogahay marka inaad dawo cunin ama kaniiniyaal aadan cunin ama waxyaabo kale aadan cunin oo la isku caateeyo laakiin only ay tahay inaad cuntadaadii bedeshay aad heshay calorie control iyo balance nutrition okay marka ma jiraan dad kale oo resultigaaga maadaama result intaas la eg waqti yar oo kooban aad haysato ma jiraan dad kale oo caawisay oo markay arkeen adiga isbedelka sameynayso maadaama aad tahay hooyo Soomaaliyeed hooyooyin badan ay jiraan oo wixii adigu markaas aad dareemi jirtay dareemaya dabcan ku arkayana ma jiraan dad kale oo caawisay oo adiguna marka maanta farxad iyo caafimaad haysa horta ma sha Allah waa jiraan aniga Herbalife markii aan 3 bilood isticmaalayay ee aan faa'iidadii hubsaday iyo natiijadeedii ayaan waxaan soo bandhigay inaan ummadda Soomaaliyeed caawiyo waliba anigu ma soo bandhigin ee aniga waxay soo bandhigay macnaha resultaatigii aan helay ay ummaddu arkeen qof waliba igu caasha Soodigii xilligan sida ahaa maxaa ku bedelay baashaas ay isbedeshay walaalo iyo caawisay cuntadaas aan isticmaala subaxii ku quraacda walaalo ilmo yar banaasiya sidaan u isticmaali karaa waan u bandhigay cunugayga xitaa qaar baan u sawiray ilmahayga yar dhashay aan tusay oo ku intaas oo bilood buu cunugaygu jiraa marka kulli qofka bilaadanka waxa sheer garaynaya ama se tusaale ka bixinaya horta isaga isbedelkiis qof aan isbedel helina ummad waxba uma gudbin karo mana sheer garayn karo way hadan caawamaan resultaati helin Herbalife dhada ma suurta geliso sida kulli aragtidayda aniga ahaan marka yana hadalku ku daalina aniga ma sha Allah teamkaygu aad buu ballaaran yahay 100 waa ku dhow yahay alxamdulillaah rabbil caalamiin وانا كبدي هويوي واليين رج واليين كوتش انيغو كلا oo ila shaqeeyaan leeyahay alxamdulillah teamkaygu waa ballaaran yahay marka dadka ugu yar waxa kamid ah gabadh wiil 8 kiilo kordhiyay miisaanka waxa kamid ah hooyo xanuunsan jirtay oo cuntadeedu aanay fiicnayn oo markii ay qaadatay Herbalife Nutrition ay joojisay waxa la wixii kiniina haday noqoto dhiikar ay liqi jirto kala aanay liqin maadaama cuntadeedii isbedeshay oo way Herbalife ma aha daawo laakiin automatic ahaan qofku markuu cuntadiisa bedelo waxa isbedelaya isagiyo dhan sababtoo ah hadda dhakhtarka marka tagto dhakhtarku wuxuu ka oranayaa subaxii waxaad isticmaashaa quraac healthy ah maalintii waxaad cuntaa cunto healthy ah sababtu ku oranayaana waxay tahay dhiigaagu ka arkaya isbedelkaagu ka arkaya marka Herbalife waa waxa kaliya ee qofka bilaadanka ilaahay ka sakow noloshiisa bedeli karaan aaminsana عائشة muddo dheer ayaad ila soo xiriiri jirtay waxaan rabaa inaan ku galo caawa la isgelayaa moogtaa dhowr mar horaad isoo weydiisay waqti intee la eg kugu qaadatay inaad go'aan qaadato oo Herbalife bilowdo maxaase ka aaminsanaa jirtay horta Herbalife sheekadu waa dheer tahay coach badan halkan ku jiraan kala way sognahay wada xijisay xaqiiqada inaan sheegaan rabaa
number 1 ninkii ugu horeeyay la xiriiray Shaakir buu ahaa 2017 bishii koowaad anoo Paris jooga Shaakir la xiriiray haye Ibros baa kamid ah dad badan baa kamid ah waxaasna waxa sameynayay uun inaan xaqiijiyo oo aan natiijada ogaado iyo waxa laga sheekan xitaa heer waxaan dhici jirtay marmarka qaar live ka Shaakir oo kale markaa kanada kiiba heer ba live ka sheekanay waar naga tag laakiin xaqiiqadan ogaaday waxay tahay aniga Ibrahim ay u ka soo xiran jecela of course ma garat markaa waxa weeye waxaan uga dan leeyahay macnaha wixii anigu aan ka aaminsanaan jiray inaan bulshada u bandhigaan rabaa way dhici kartaa qofna ka tiifa oo sida shalay anigu aaminsan maanta laakiin si qof waliba marka uu wadada qaado ama se uu xaqiiqada ogaado ayuu ogaanayaa natiijada dhabta ee beesha taala markii adiga aan contact kula soo sameeyay kolle si reality ah kula hadlayay 12 habeenimana way ahayd xaamilana waa soo jeeday bari oo kale aan isbitaalka galayay oo kula soo xiriiray waxaan ku coach dhibaatadaas ay haysata ilmi ma caawin karo cayilkii way iga batay hal midna ma hada waan rabaa inaan bulshada u sheego aniga dad badan oo garanaya beeshan ku jiro is oranaya talo Caasho Cumar waa tii dhuubneed maxaa daaray aniga sports waan sameeyay halka mid waan rabaa inaan bulshada u bandhigo way dad badan waxay ku dhaca Caasho Saudi dhuubnaa maxaa herbal life u isticmaasha sax aniga Talyaaniga anigoo degan 100 kiilo noqday dhakhtar baan u tagay wuxuu igu yiri isma laha miisaanka ku saaran dhabarka la iga qabtay adigu waxa la diray bahalkan gym-kan maaragtay waayeelka loo diray ee lafaha laga saara waxyaabaha kaasa la diray adigu baruurta iska rid baa la igu yiri sports baan sameeyay baruurtan iska riday dadaal badan baan sameeyay alxamdulillah waan ku guuleystay laakiin maxaa ii xigay wallahi inaan been ku sheegay haddaan afturay inaan baska ku suuxo vitamin laan darteed صح in aan basaska ku suuxo in maaragtay dhakhtarkii markaan u tago wada sidaad u nooshahay anigoo waliba 7 subaxnimo shaqo galaya oo 7 fiidnimo shaqo ka soo baxaya waxa la ii qoray iraab afka laga jibinayo oo bish hal mar xabad la jibsanayo oo dhowr xaba iyadoo sidaa tahay haddana xaamil aan noqday dumarka Soomaaliyeedna markay xaamil noqdaan ama markay reer iska yeeshaan dawas dhigtaan wax isdhaan waa iska normal oo de numberkaagi waad hesh hadda ka hor waxaan maqlamo taqaanaa ka dhax galay lina waxa la yiri wiil dhalinyaro ah oo xaraga badan oo ahaa jira la yiri moogta marka uu shan la badnaa habeen shanladu ku seexan jireen dashan la isku seexan jiray xaraga intuu ka gaar maalintii dambe uu guursaday shanladii iska dhaafay iyo xaragadii waka waa dhibaatada ina haysataa markaas la yiri maxaa kugu dhacay hebel oo Saudi shanlada ku seexan jiray oo Saudi la yiri guursadaya maada shanlada dambe wata dhibaatada ina haysata weeye markii adigu gabadhaydii dhameyd ee 2 sano dadaalaysay ee sports ka sameeynay ee ordaysay markii aan uurka yeeshay waxay noqotay inaan sida abaydinka habeenkii afkaadha iyo caana iyo baasta isku dhax karaysa mirto miisaankaygu wuxuu isku soo celiyay wallahi inaan been ku sheegay 98 kiilo ayuu miisaankaygu isku soo celiyay 72 kiilona waan ka soo laabtay inta aan uurka lahaa oo kaliya صح waxay noqotay markii aan cunugii dhalay ee aan sirida wadiga umulay hadabada magaalada galo xaragooda de ilmaha ku xaragood inaan aniga xishoodo oo mara xiran ka riwaayo oo aan idhahdo waan buuranahay waa kan aniga shaki igu dhaco aad marka waxa ii saamaxday oo hadafkaygii ii suurta gelisay oo bulsho mido anigu aan caawiyo oo aan coach u ahay oo taliye tusaale naga wada dhaxeeyo ay hadafkoodii u suurta galay maalintii anigu horta shakhsi ahaanteeda noloshayda aan bedelay diyaarna waxaan u ahay ilaa ya hadda inaan sii wado noloshayda inta ka dhiman ee tii Ilaahay iimanayso ما شاء الله ان عاشو ادي سي وضو hal talana oo soo jeedinaya kulle barnaamijkeena ku dheeraana ma rabno taraawiix iyo hawla la aadaya waxaan rabaa hal qodob inaan soo jeediyo rag horta iyaga iska daa rag iyagoo hadhow iska cifanayaan oo sports bay iska tagayaan oo meelahaas ay magaranayaan hawjooda iska wadanayaan hawlahooda badan yihiin halka tala qofka dadka aan soo jeedinayo waxa kamid ah reality ma haysteersama la baritaa ما waxaagu waa qabyaalada raggan ana u soo jeedi doonay aduu dumarkaaga u soo jeedsa waxa soo jeedinaysa number 1 waxa aan soo jeedinaya wallahi waxay tahay hooyooyinka Soomaaliyeed beeshaynu joognaa waa qurbe ma joogno wadankeena hooyo walayba tala iyo tusaale adigu ku haysta hadii nin kula joogo iyo aadaanu kula joogin talada guriga iyo mas'uuliyadu number 1 qofka ay saarantay waa hooyada
ورن hooyada waxaan kula talinayaa in aanay isticmaalin hadal bilaadan qof bilaadana wixii uu yiri inay isticmaasho garaadkeeda iyo caqligeeda iyo mas'uuliyadda ay ilmaheeda ku wadato in ay nolosheeda ku bedesho in ay shiibkeeda ku qurxiso in iyadii ilmaheedu isleekaadaan maanta aniga inantayda ayaan yar waa isleekaanay 9 sano jirtaa ma garad صح waxaan u malaynayaa shaakir baan arkay islaan talyaaniga uu soo dhigay isaga inanteedii aad baan ugu farxay hooyo baan ku kaale saasoo kale inuu noqonaynaa mustaqbalka صح macnaha waa waxyaabaha dhiirigelinta waxyaabaha ka mid ah ee maaragtay aad ka wanaagsan weeye aad iyo aad marka talada aan soo jeedinaya waxay tahay dumarow aynu istaagno inaynu horumarkeena number 1 ka gaadhno inaynu dadaalkeena sii wadano inaynu guusheena sii wadano inaynu cuntadeena bedelo inaynu nolosha gurigeena bedelo maaha nolosha guri yar oo room yar iyo balaayar dhaxtaalo oo aad ku faanayso leedahay guri baan degan laakiin nolosha quruxdeeda iyo isteelkeeda iyo wanaageeda iyo socodkeedu waa qalbigaaga صح marka waxaan leeyahay aynu qalbiga iyo uurka hoostiisa ka korno kadib midho isaga iska dhalan doona haddii aan kaftan yar ku dhex tuurona raggan waan u soo jeesan doonaahe hadda gabdhow haddii aadna sida gadaal baa laga habeynaya ragga gadaal baa laga habeynaya ma haddii aan sida Caaisha loo dadaalina waxaa dhici doonta dee odaga xaajigiina inuu dee meelo gabar dhex yar raadsado soo ma number 1 waaba u soo taaganahayba waa number 1 taasi shaki baa gelin marka halkan hal cunug dhasho ama laba cunug ee aad dabadna telefoon qabsato ee waxaan ku uri laga dul guuro ee aad dirc shiida gurigi ku dhex martay waxaan ku xaggan iyo xaggan baad u faacdo waa qasab inuu inan yar raadsanayo waayo meelku wuxuu isticmaalayaa publica ummad buu ku jiraa suuq buu ninkii ku jiraa wuxuu arkayaa gabadh yar oo adigoo kale waxa laga yaabaa gabadhaas inay adiga ka weyn tahay da ahaan marka la qiyaaso laakiin si ay naag iska shaqeysay oo shiibkeedii quruxdeeda wanaagsatay ay tahay sababtuna indhahaagaasi wixii ay jeclaado un baad raacaysaa naagtan ama caruur ha dhashaa ma ay dhalin aad iyo aad maasha allah tala fiican oo wax ku ool leh oo weliba dee kashka iyo laabta ka soo go'day ayaa siiday gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed anuguna waxaan ugu darayaa xaqiiqdii sida saxda ah weey Caaisha waxay ka hadlaysaa uurkay ka hadlaysaa hooyooyinku maantay qurbaha ku noolu ayaga maanta waxay u baahan yihiin inay helaan balance nutrition iyo nafaqo dheelitiran iyo waxyaabihii markaa jirkooda u baahnaa maxaa yeelay hooyada iyo ninka ragga ah isku mid maahan sida Caaisha sheegtay ninka ragga ah ilmo ma dhalayo uurna ma yeelanayo mas'uuliyadda inta badan dumarku ay hayaana inta badan raggi Yurub maba hayaanba hooyadii ayada ordaysa iskoolkii aadaysa caruurtii haysa shaqadii ayada cararaysa mas'uuliyadda ilmaha ayada haysa ayada dareemaysa inay maaragtay caruurteedii xanaanaysato oo hooyadii waxay ku fakaraysaa caruurkaaga yaan gaal ka qaadan ama laga hunguriyeyn ama marka waxyaabahaas oo dhan haddana waxa ka dhiman kaliya waxay tahay anagu dee waxaan ku caawin karnaa waxay tahay hooyooyinka Soomaaliyeed inaan macnaha xalkii macnaha nutritionka ama nafaqada hooyadan waxay u baahan tahay nafaqo waxay u baahan tahay balance nutrition waxay u baahan tahay calorie controller waxay u baahan tahay wax kasta oo jirkeedu u baahan yahay inay hesho laga yaabee marka inaysan aqoonin sidii ku heli lahayd laakiin Caaisha u haysa insha Allah kana caawin doonto hooyooyinka Soomaaliyeed haddaad aaminsaneed inaan miisaan la dhimi karin 22 kiilo dhintay Caaisha anuguna 20 kiilo lama tiri karo Soomaaliya resultigooda diyaar waxay u tahay teamkeedu wallahi waa teamka ugu resultiga badan hooyo habeen dhaweed aan wareysanaynay ana yaabay resultigeeda waanba ooyayba gabadhii Switzerland hooyadeed ee Netherland ka timid markii hore ku tirina waxaan iga duwaad qasaydo ka bacdina Ilaahay caafimaadka siiyay markay dee cunto isku dheeli tiran oo balance heshay muhiimaduna waxay tahay adiga horta fiiri maxaa lagaaga sheekeynayaa Herbalife maxaa lagaaga sheekeynayaa lifestyle maxaa lagaaga sheekeynayaa 20 kiilo dhimay faaraxa dhimay adigu ma u baahan tahay maanta inaad miisaan ama dhinta ama miisaan kordhido ama aad horta qofku ma hada qofku miisaan wuxuu dhimi karaa qofku markuu qof soo jeeda yahay ama qof aragti fog uu yahay ama waxa hor yaalo uu arkayo ayuu miisaan dhimi karaa laakiin qof aan aragti fog lahayn qof aan maartay mission lahayn waxba ma dhimi kara ila tahay miisaankana anigu waxaan aaminsanahay focuska yaa la saarin horta number 1 qofku waa inuu caafimaad ahaan iyo cunto ahaan isbedela automatic isaga marka miisaankaagu isu bedelaya aad iyo aad may waaba wada socdaanba haddaadaba cuntadii bedelinba miisaanna ma dhimi kartid
caafimaad iyo lifestyle ma keeni kartid si macnaha nolol aad ku faraxsantaana meesha ma imaan karto maxaa yeelay Soomaali markaan nahay waan isnaqaanaa waan isgaranaynaa maanta dee qof Soomaali aniga markay soo wacaan inta badan coach aan ahay aduu dad ilaa iyo waxaan coach gareeyaa kun iyo inta gaarayaan coach ahay markay ila soo xiriiraan qofka waan garan karaa ma xataa inta badan su'aalaha maxaad cuntaa oo kale kuma sii badiyo sababtoo wanaga wuxuu cunaa bariis iyo baasta iyo hawlihii wixii aan cuni jiray alaabtii marka markiiba qofkii inaad markaa dee xalkiisii siiso miil balaankiisii siiso qorshihiisii markaa hadafkiisii goolkiisii u gaaro waxaan kula talinayaa hooyooyinka Soomaaliyeed dhammaan intana maqlaysa intana daawo doonta videoga daawo doonta Aisho ayaad la soo xiriiraysiin contacti la soo sameeyo insha Allah biidhnillaahi kariim haddaad aniga ila soo xiriirtiin ana idiisi gudbi doona ayadana facebookeeda waa ka dusha sare ku qoran laakiin dadka la caawin karo waa only dadka ku nool meelaha Herbalife ka jirto Europe Australia Mareykanka Canada New Zealand dhulka ay ka jirto laakiin haddaad walaal hal talana waa raba ma hadina ku darsado insha Allah warkaaga dhamayso haddaad Afrika iyo ku nooshaho kale way iska yara adkaanaysaa marka qofku waxa fiican inuu soo qoro meeshuu joogo iyo waddanku ku nool yahay si waqtigii maadaama nagu yar yahay dadkina nagu badan yihiin qof kastana aan rabno inaan u fududeyno hawshiisa iyo goolkiisa inuu gaaro si wixii u soo koomaan magacaygu waa Faarax waxaan ku noolahay waddanka Sweden waxaan u baahanahay qorshaha noocaas inta haddaad soo qorto markiiba waa lagu fahmayaa marka insha Allah Aisho ku darso wixii aad ku darsanayso insha Allah halkalena waan ku darsanayaa insha Allah kulay raaya ahaantayda ka soo maaxatay maadaama aan coach ahay umad badan aan caawiyay macnaha waxyaabaha aan la kulmay ay kamid tahay waxa aan la kulmay waxa kamid ah qofku inuu dhaqaalaha focus ka saaro qofku inuu ka hadlo maaragtay waxyaabaha aan macquul ahayn waxaan u soo jeedinayaa tala ahaan rag iyo dumar tani way leedahay tala ahaan waxaan u soo jeedinayaa marka hore aaminsanow nafsadaada ku kalsoonow nafsadaada isbedelkeeda iyo guusheeda iyo horumarkeeda raadi waxa dhici doonta maanta dhaqaalaad ka fakaraysaa laakiin mar ay hareerahaaga iska ooli doonto adigoo maaragtay naftaada caawiyay bulsho badanna wax ka bedelay noloshooda marka ha interest karaynin waxyaabaha qaar waynu soognay kullay laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad interest karayso adiga nafsadaada iyo isbedelkaaga iyo sidaad friendship ku heli kartaa sidaad quruxdaada ku bedeli kartaa sidee maaragtay aad bulshada ku hanan kartaa waayo maanta qof haddaad halkaa marto qofkaas ku dhahdo wallahi gabadhaas waa buuranta iyo dil gabadha wallahi gabadhaas aad bay qurux badan anigu waan kamid ahay dumarka aad u jecel dumarka quruxda badan leh ee steelkooda aad uga hela oo dadka qaar baa bay guraan naa maxaad ka samaysanta horta ciil wuxuu ku qabanayaa kolley dee raggow anigu dee kolley raggaan u hadlayaaye anigu waxaan ciil iqaba jiray ama cara iqaba jirtay markaan inta tukaan tago si weli marka iida soo dhowdahoo kale intaan sambuus iyo bur iyo iska buuxiyo dee 5 kiilo soonka igu kori jirtay moogta Herbalife ka hor aan maaga wax soo iibso jaakad ila eg waayo surwaal ila eg waayo funaanada ila eg waayo waxay ku waaysaa calooshiba ka horeysa marka dadkii maradii xirana calooshaadiba banaanka taal marka ma qofkii calooshiisi banaanka taal والله أنا بينك وش شيء أوركان كذا نقشري حقيقة أنا بيني وش شيء أنا ضد كسي سيريوس أنا واحد لا مركان أركض ضد بنتو كان كيس لا سوق قال لي قف كانوا شاكات يروح بدن درك أنا وأركت من دمتكو كيري هو كقروح ولبس كوجسوا بيحوق يقفكو دمنا شاكات دي يريدون أنا ودقو يجي ومتبع أنت الصقر ضوق قال لي وضرق سيستو سيستو أو إسور استاجي مركز النحيسة مركز الدنيا ما أنت محاتم ما أنت أنا كهر حرتدي وكم وقت الحمد لله ما شاء الله أساسا نبشر بدنا إن شاء الله وبدلنا مرة البوانوس وبندقينا وحي مارتي تلية تصالة مركا وحن لنا عنتده Herbalife Nutrition وعنتقاد كجا مارمي كرتو wax kasto oo jirkaagu u baahan yahay wax allaale wixii fitamiin jirkaagu u baahnaa oo dhan ayaa ku jira kol aniga maanta oo dhan waa soomanaa qof islaam ah oo salaad baan tukadaa waa soomaa haddana dee rabadaan igama muuqato alxamdulilaahi rabbil caalamiin dadkeenina waad ogtahay marka kale qaabaaga waxa kale gaas tari baa igu kacsanoo qajaar baad soo dhigatay Facebook salaad iyo alaab soo dhigatay oo caashay walaal waan samaystay waan cunay laab dilaac baan ka qaaday maxaan sameeyaa واقرتي صرت كلام موجة قشار واركاسي معها كلا عبد الله عبية Herbalife استعمال Herbalife باكو عاونة
waa saas waaye Soomaalidu waxyaabo badan cilado badan iminka internet daawadaan wixii ku cararayaan internetka markaas wuxuu soo iibsanayaa waxyaabaha aan la garanaynin iyo waxyaabo nooc aniga igu dhacday internetka aniga wiil u dalbay alaab way gaadhay way u tagtay tawbu yiri internetku galay wuu dalbaday wuu soo wacay wuxuu igu yiri walaalo internetkan alaab ka dalbaday qoladii internetka lacagti wali ma bixin way soo waceen maxaa sameeyaa waxaan ku uri internetka ma laga yaabaa baan ku uri inaad meel khaldan gashay armay ku roonto inta telefoon u dirtay inaad tirado uma baahni talabaadkaaga iyo discountigaagana aad ku socoto iyo coachintaada iyo caawitaankaaga wiilka weyga aqbalay sidii buu sameeyay qoladii buu telefoon u diray wuxuu yiri ma samayn karo ganaax xitaa hadii la soo diro waan dirayaa buu yiri marka wuxuu qaatay balaankii anigu aan siiyay ku walaalo imika internetka ka dalbato aniga ima soo wici kartid baan horta ويانا ما قام وحين تريت لكن وحنا كنا نقانا استعماله كان أنا استعماله أيان كعاون كرا كل ضل بكرا كوسا بندقي كرا ما وحابة شرب عايشة الإنترنت كولا الواحد كسته كتير مانتي هذا ربوا أنا قلت سارة هان إن عند هرب لايف يوم ما قعدوا حماية وكله باشا وأولافيرا أنا قاعد لما يستيتوا سارة هان ده وحبان كوسا شو بكرا وأنا سوق لي كرا أونلاين كا marka taas macna ma sameynayso inaad online iskaga ordo wax ku jira iyo wax kaaga soo bixi doonaa mid kale macna ma sameynayso inaan aniga waxiin aan garanayn inaan ku sharaxo hadhow aniga dhibaato iga imaan karto marka anigu waxaan ku caawinayaa sidii la caawiyay Herbalife waa person to person waxa weeye coachna lagu sameynayaa plaankaaga lagu siinayaa nutrition educationkii waxyaabahaas oo dhan aad baranaysaa waxaad helaysaa bahalkii ii sheeg groupkaad ka mid noqonaysaa teamka casharada la qaato ayaad qaadanaysaa wax badan aad ogaanaysaa waxaad aniga fiiri walaana been ku sheegayn before Herbalife ma aanan waxaan maqli jiray qofku biyaha caba ayuu dhaqaasiistu yiraa laakiin waxaan bartay 25 kiilo jirkeyga inaan 1 litir u baahanahay waxaan bartay 50 kiilo markuu qofku yahay inuu 2 litir biyaha hadduu ka yaraysto xaaladiisa caafimaad aysan anaf ahayn waxaan bartay hadduu qofku 75 kiilo yahay inuu 3 litir oo biyo imisa hadda 210 qof baan daawanaysa waxa laga yaabaa qaar badan oo kamid ah inay og yihiin sideedii oo kale in biyuhu jirku u baahan yahay kaliya laakiin ayagoo 100 kiilo inay 1 litir oo biyo cabayaan okay taas waxaan ku sheegayaa in biyuhu muhiim yihiin waxaan oo dhan way wada socdaan biyihii nutritionkii wixii oo dhan waa inay marka ku wada shaqeynayaan haddaad meel carra ah ama dee baashan dhoobadan lagu dhiso guryaha sibirka aad biyo yar ku shubto biyihii macnaha waxay loo isku dhegdhegan haddaad biyihii u badisana waxay noqonayaan inay dee meesha daad qaado kale marka calooshaadii jirkaaga waxaaga dhan 70% waa biyo marka wax kastaad marka ka baranaysaa Herbalife nutrition iyo coachingka qaaliga Soomaalida ku caawinaya adiga waxba lacag ka rabin shuruudu kaliya ay tahay ma joogtaa meel ay Herbalife ka shaqeynayso that's it waa intaas kaliya mana tahay qof diyaar u ah oo waxa weeye gool leh oo raba inuu markaas okay hadday kugu jirto qofku muhiimadu waxa weeye qofku inuu go'aan yeesho isagoo go'aankiisa iyo ila publicadii uu arkaa wararkii uu dhageysanayaa uu la socdaa isagoo programkiisa iyo ujeedkiisa iyo hadafka aniga maanta kula soo xidhiidhayay waraysi kugu maalimin waad ogay ma hado walaalo hadda ma ii samayn kartaa ma soo go'aan ma soo qaadatay baan ku walaal hadda ii sameey ii dhamee hayo waayahay baad ugu tiri may waaba sidaasba walaahi dee aniga lafteedu dee wixii muddan ku jiray oo hadda qofka anigu inuu serious yahay iyo mid kalena waan rabaa inaan ugu kordhiyo dadka anigu mid kale aan rabaa macnaha dumar badan ba waxay igala hadlaan hooyadu markay uur leedahay ama naaska ilmaha jaqsiiso aniga wiilkayga mahadyare 7 bilood buu jiraa 2017 bishii 7 ayuu dhashay mahad baa la yiraahdaa Herbalife sidaan u cabeeyay ilaa haddana naaskiisa waa jaqaa wax dhibaana kama arag ma sha Allah waxaan isbedel iyo qurux aan ahayn iyo caafimaad kama arag wiilkayga umada Soomaaliyeedna saasoo kale aan ugu baaqiya maaha kiimiko maaha wax dhib ilmahaaga u keenaysa waa wax natura herbal nutrition kulli micnaheeda dadkan wax bartay cilmiga way fahmayaan ما يقف كستور marka warka yar ugu dheeraynay insha Allah bulshada waxaan ugu baaqaynaa isbedel caafimaad harumar indhaha in la kala furo laabta la kala furo qalbiga la kala furo noonayuu noqonin hadalkaagu hadafkaagu taladaadu tusaalahaagu agtayda wuxuu mahad ka yiri oon dabadna yiraahdo naga daa mahad baa waxa yiri oo ma fiicnee no
yuu ما noqonin تا هدي kalada دعدو تا هدي دعدو tusaale ahaan de Caaisho hadda maantay wadadii horumarkay haysaa isbedelna way samaysay wax badanna waa u kala cadaadeen laakiin qofka maanta raba wax awsan ogeyn inuu ogaado waa adigana daawanaya weeye qofka maanta raba inuu markaa goolkiisa gaaro diyaar loo leeyahay in markaa wadadii la tusana waa adiga kadib markaad adigu xaqiijiso inaad goolkaaga gaartana adiga laftaadu maxaad u fadhinaysaa waa inaad bulshadaada caawisaa kabilow kabilow hooyo eeda kabilow caruurta ku xiji saydigaa ku xiji sodagaa ku xiji gaarsii waxaan adiga okay laakiin haddii adiga aadan isbedel samayn ama aadan ku qancin ama isa ku cajibin dee markaa cidna ha u gudbinin muhiimba maahan waxaan aad iyo aad u maaragtaa komatigada hoos bay nooga jiraan oo telefoonka xoogaa naga jiifa marka samsam aadanaan hadda u jeedaa komatigeeda waan caawinayaa dadka sida runta ay isku bedelaan maasha allah marka komatiyadii ma wada arki karno no problem laakiin tiimka qaaliga halkan ku jira waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo dhammaantiin noloshiinaad bedesheen intaa kumaadna ekaysan dad kalaad sii caawiseen adduunkan waxaan rabnaa inaan ka dhigno macnaha adduun habiya oo caafimaad qaba guri kasta oo Soomaaliyeedna waxaan rabnaa in quraacda Herbalife looga quraacdo macnaha aniga Herbalife maxaan u doortay waxaan u doortay waxay tahay 30 iyo intaasoo sano ayaan soo cunayay cuntooyin kala duwan wax markaa faa'iidaahon ka soo helay inaan ku noolaa maahane oo gaajada iga bi'inayeen maahane ma jirin laakiin noloshaydiya isbedeshay energy-gayga isbedelay caafimaadkayga isbedelay lifestyle-kayga wixii aan cunayay iyo maaragta nutrition-kan u baahnaa fiiri indhahayga maanta waxay u baahan yihiin waxyaabay u baahan yihiin jira inagu man aqoon uma lihin indhahaaga madaxaaga meel walba maskaxdaydu waxbay u baahan tahay dhagahaygu waxbay u baahan yihiin lafahaygan kala goosyadeedan laakiin de kama helayo bariis iyo baasto baahidun bay iga biinayaan marka insha allah aad iyo aad baan idin salaamaynaa meel kastood caalamka ka joogtiin programka Caaisha iska laheed ayadaad la xiriiraysiin anigu waa daalay dad badan hore u caawiyay insha allah intii la soo xiriirtaan ayadan u gudbi doonaa insha allah biidnillaahi kariim la xiriira insha allah waydan caawinaysaa siiba dumarka laakiin wixii rag insha allah waa sukaana keeni kartiin insha allah daaba ayada lafteedu marka hore ay hooyooyinka xaggooda aniguna de ragga maxaa ka reebay inaan ugu baaqo oo ilaa baasha caloosha yarta hana aan iska reebno ya waa kana hooyooyinka mahado hooyooyinka iyo dumarku macnaha ujeedka aan ka wadaa waxay tahay hooyo aabuhu iska buurnaan karaa isdhoobi karaa siduu doon u samayn karaa ilmo ma dhalayo laakiin hooyadu dhibaato aad u fara badan bay maraysaa way nuujinaysaa way umulaysaa way qaadaysaa way shaqaynaysaa way wadaysaa rafaadka ay waalidku hooyadu marayso ma aaminsanin qof marayaa jira marka ujeedka aan dumarka Soomaaliyeed rabo inaan ula wadaago macnaha isbedelka iyo faa'iidada ay Herbalife leedahay waata maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin in allaale intii isticmaashay teamkayga kamida qof waliba telefoon bii soo diraya walaalay waa mahadsantay baashi isbedelkaas aan ka helay laakiin shalay tomaan aaminsanayn marka alxamdulillaah rabbil caalamiin marka wali waan u baaqaynaa bulshadeeda ka daalimayno UK samsam aadan la xiriir insha allah scoorka resultiga haysataa xaq bay u leedahay marka insha allah in iyaduna hooyooyin badan caawiso marka UK samsam aadan marka sawirkan aad u jeediin waxaan qaaday 1 February 2017 daahan aan sawirkan ku galana waa daa hadda iga dambeeya ma isleeyihiin horta maya daaha fiiri daahan iyo kan iga dambeeya ma isleeyihiin daahagu isleeyihiin ha waa asaga weeye daahana ii xirnaa halkan aan ku galay marka waa kaasa coachkayga igu yiri waa inaad sawir gashaa marka wallahi uma aan gelaynin xataa sawirkan dee taariikh ku noqon doona iyo history waxaan islahaa nin uu wax ka dhiman xataa nolosha waxaan ahaa nin ka quustay oo ku fakari jiray xataa macnaha inaan miisaan dhimi karin marka waad u jeedaa surwaalkan dee wuxuu ahaa shaarkan waa 3XL 3XL XXXX marka insha allah qof kasta noloshiisa uu bedeli karaa aad baan idin salaameynaa insha allah biidnillaahi kariim meel kasta intaadna daawateen waa idinkaga mahad celinaynaa maxaa yeelay haddaadna idinkuna daawan annaguna ma hadli karno hadalkeennuna micno ma yeelanayo haddaadnan idinku sheer garayn ee aadnan gudbin hadalkeennu ma gudbayo halkan ma dhaafayo Facebook noo sheer gareeya insha allah si ay bulsho badan oo kale u taabato oo u gaadho
aad iyo aad marka aad iyo aadna idin salaameynaa salaadihii taraawiixdii aan nahaya سلام الله caaisho adiguna waad mahadsan tahay wixii ku ما شاء yimaada insha allah oo serious caawi kii kale onda إن serious شاء hayna markuu go-aan soo qaata asagaa ku imaan doona marka meel إن شاء kastood caalamka ka joogtiina aad baan idin salaameynaa waxaan idin إن شاء rajaynaynaa kula aam wa antum bikhayr ramadaankii wuu dhammaan rabaa maalmo yaraa dhiman عيد marka dee وناكسن intii sambuuska iyo burka iyo inta isku daldashay iyo baasada la seexatay dee kolley 5 kiilo 4 kiilo ila 6 kiilo soo kordhideeni halinka ridee insha Allah soo diyaar garoob insha Allah challenge cusub ah bilaabo doona maalinta ciidda insha Allah إن شاء الله aad baan ku salaamaya mahad aad baad u mahadsantahay insha Allah dhammaan asxaabtana aad baan wada salaamaya waxa laalo wixii isbedel diyaar u ah rag iyo dumar diyaar ragga wala kaftameeyay mahadna weyni ragga jooga dumar ba Caaisha waa qof howl kala shaqadeeda qabsanaysa aad baan idin salaameynaa insha Allah salaam alaykum aye salaam calaykum aye okay waxay ahayd coach Caaisho ma sha Allah waa qof qaaliya oo waxa weeye agteeda qiimo weyn kale geesiyada nolosheeda wax badan ka bedeshay familo badan caawisay haddana diyaar u ah inay markaa dadkooda caawiso insha Allah contacti la sameeya wax kasta everything diyaar idin la tahay insha Allah aad baan idin salaamaya insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh